بسم الله كلمة waxay ku saabsan tahay ay daba joogtaa habeenkii aanu soo dhaafnay isniinta ahayd oo anagi jeedinay kelimo ku aadanayd Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame khaladaad diineed oo galay kelimo ku saabsan oo anagi soo jeedinay habeenkii isniinta ahayd ee darsiga u dambeysay xawana waa sabti soo sidaa ma aha waxaynu tilmaannay habeenkaas bifadlillaahi wa caawnihi 6 qodob oo ku dhacay ina Warsame oo ku jirtay hadalkiisii uu ka jeediyay Jarmalka qodobadaasi waxay soo dhaxyaaleen qodobo gaalnimada ku cad kuwa daahir ku ah iyo kuwa min baabi al-ilzaam wal-luzum waxoo dhan baynu isku qiimeynay xukunkii sharciga nagu aadanaa baynu qadinay hawshaasi meeshii ku dambeysayna waad la socoteen waxaa soo gaadhay oo xigay isla habeenka qudhigiisa anigu kelimada aan jeedanayay ayuu ina Warsame asaguna kelimo jeediyay marka live ay ayadoo xilligaad hadlaysiiba asaguna hadlaayay bay xirtu ugu yiraahdeen laakiin anigu maalin kadib baan dhageystay dhowr goorna hadalka waan ku celiyay marka wixii aad ogeydeen ee hore maxaa iska bedelay baynu caaw wadaagaynaa insha Allah hawshu masida hora oo xukunka hore in Cabdishakuur saaray mise Cabdiraxmaan buu ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur xukunka hore inuu saaray miyaynu ku wadaynaa mise waxbaa isbedelay bay hawshu caaw ku saabsan tahay hadalka dambe ee uu jeediyay habeenka isniinta uu jeediyay ina Warsame si guud waa hadal ka qiimo badan kana wanaagsan kii hore uu siiyay BBC-da ee aanu markaa aan tacliiqiyay aan ka hadlay hadalkaasi si guud wuxuu ku cadeeyay in khalad walba oo ku yimid hadalkiisii Jarmalku uu ka jeediyay uu ka laabto ka toobad keenay ilaahina uu ka baryahayo toobada inuu ka aqbalo dadka muslimiintana ay cafiyaan cid walba asaga taageertay ama mucaaradayna cafis buu weydiistay hadal yaraha quruxsan oo sidii Soomaali lagu yaqaanay ayuu la yimid laga yaabo in balaayo u qarsoon tahay laakiin daahirkiisaan inagu hadda inoo yaala dhowr qodob marka oo ka kooban aan ku soo ururiyo waxaan u jeedo caawa inaan baraarujiyo qodobka koobaad manduumada dimuqraadiga mucaasirada ee uu ka tirsan yahay ina Warsame waxyaabii horaan aan ku haysanay kama hadlayna caawa xukun hore oo manduumadaas iyo asaga iyo wixii la halmaala ay leeyihiin kama hadlayno waxaanu ka hadlaynaa xadgudubkii goonida asagu uu geystay iyo xukunkii khaaska inuu saaray asaga khuseeyay laba marka xaajoon islahay ha isdul saarina sida aan arkay caamo wax isku khaldaysa iyo wadaadda wax labaya ilaahay subxaanahu wa tacaala gaalada si guud buu u sheegay kuwa gooniba oo la baxay si guudna waa loo sheegaa kuwana gooniba loo magacaabaa daa'ifo iyo jamaac xukun la siiyey iyo xukuumad xukun la saaray iyo nin gooni loo baacsaday way kala duwan yihiin waxaan caawa ka hadlayno horaana ka soo hadlay waxay ahayd baacsi gooni oo ku aadanaa ina Warsame xadgudub khaas oo geystay dartii meenu isfahanay ina isfahanaan u malaynaya taasi marka waxay ku salaysan tahay qodobka markaan hoos ooga dago wuxuu ku salaysan yahay ma dhici kartaa aadamuhu ayagoo dunuub badan ku dhacay inay qaybna ka toobad keenaan qaybna aysan ka toobad keenin si kale haddaan u dhigo toobadu ma qaybsami kartaa haafan haaf ma noqon kartaa hal tawbatu tabacad wa tatajazza bimacna khamrana waad cabtaa zinana waad ku aafaysan tahay ina zinada ka toobad keento ma dhici kartaa adoo khamrida wali fuudahaya meed fahanteen waxaan u jeedo kufri horaado lagu haystay mid dambo lagu haystay ka dambe intaad ka toobad keento kii hore ma dhici kartaa inaad baaqi ku noqoto معناها كالله معناها سوي
المهم توبدو ما كلا برانتا ذنوب تقاركود ما لغا توبد كيني كرا أدون قيب كتوبد كينين با أصل فقهية ومسألة فقهية إن عبد الشكور هدان دهانو هذا الكيشي دنبي توبد بو أها حالينا وحو كتوبد كيني انت قدام بيسين كو هيسني انو كنري نبيو كحد قدبي نبيو حقيري دينتي بو دلميي نينكاس سو دينكا ايغا خطر او غليي نفتيسا خطر هلو غليو وركا دنبو كو ادان yahay hadii toobadiisu asaxdo annaguna waxaan ceshanaynaa faylkii aan hawsha ka bixinay hawla kale oo hore lagu haysay ma khusayso hawsha inaan celceliyaan u maynaya waxaan u celcelinayaa inaad fahantaan ayaan doonaya jumhuuraha cilmi waxay qabaan inay dhici karto ay banaan tahay in dunuubta qaarkeed laga toobad keeno adoo qayb kala baaqi ku ah oo dambi ku xiran uusan jirin mid walba iskii baad oga toobad keeni waana waajib kulli inaad ka toobad keento haddayse adigu aad khaldanto qaybna ka toobad keento qaybna sheedaan kugu sii aafeeyo qaybtaad ka toobad keentay waa laga aqbali waa laga yeeli inta kalena ku soo socaa lagu leeyahay وهذا رأي جمهور أهل العلم وأنا سيدا صوابك بل ابن تيمية وحو قارسية ومذهب أهل السنة والجماعة قولك خلاف سنة وقول الخوارج والمعتزل أي هل كاسوا الله مراسحنا معها أرضي ابن القيم باكسحا بل ومن مذاهب أهل السنة خلافك حكجر بين أهل السنة لكن جمهور توحي قبان التوبة تتبعض وتتجزأ هذا مرك قول الجمهور وهو الصواب سامر كان أبقوا وحانو جيدا inaan u gudbo hadalka taxaylintiisa saddex dambi ama saddex kufri oo inaan warsamo ku haystay hadalkiisan dambe waa ku cad yahay inuu ka toobad keenay kufriga koobaad wuxuu ahaa in xadiidkii naaqisaatu caqlin wa diin ee saxiixaynka ku jiray ee ummadu ay talaqatu bilqabuuli watasliim akthara min 1200 sana inuu inkiroo dafiray baa ku jiray hadalka hore ee jarmalka uu ka jeediyay ma ahayn sidaasay ahayd hadalkan dabara wuxuu leeyahay xadiidkaasi waan ictiraafsanahay waa rumaysnahay bal iska daa asaga sunnadoo dhan baan yaan rumaysno masdaru tashriica asagana waan ogahay waa saxiix waana qaatay idan kufrigii ahaa takdiibu xadiidi rasuulillahi sal ly slam maca alcilmi bisixatihi kufriga ahaa si cad buu oga toobad keenay qaybta inaad fahanteen baan u malaynaya kufriga labaad ee ku cad yahay inuu ka toobad keena wuxuu ahaa waxaynu nidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo culummadii buu xaqiray hadalkiisa sida ka dhalanaysa maxaa yeelay xadiidka naaqisaatu caqlin wa diinin waxaa yidhi suubanaha oo awal culamaa'i ah hadduu xadiidku xaqiraad iyo liidid dumar xambaarsan yahayna nabiga ayaa dumarka liiday baa ka dhalan waa ka laasimtay haddaba nabiga ninka xaqira waa kaafir biijmaaci lumma halkaana ina warsamaad ku gaaloodo aynu soo nidhi soo sidaa ma ahayn kufriga inuu ka toobad keen haddana waa muuqata ama waa caddahay oo wuxuu yidhi xadiidka lafdigiisa iyo matnigiisa iyo macnihiisa intuba waan ictiraafsanahay waxaan kaloo ictiraafsanahay siduu nabigu ku fasiray oo ah naaqisaatu caqlin wa diinin nabigu siduu ku fasiray ee ahayd makhraatiga iyo salaada labaduba sideedan u qaatay buuri taana wuxuu ka badbaaday xaqiridii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo culummada ee ahayd dumarkay xaqiraan oo nabiga dumarka xaqireen halkaa ka dharaan dhiranayna ee laasimka ahaa ama ma'aalka ahaana waa ama haddaad doonto daahir badhehe waa ka badbaaday ayib kufri saddexaad yacni uu ka toobadkeen hadalkiisa waa ku cadiyaan dhaho kufriga saddexaad ee hadalkiisa dambe uu ka badbaaday ama uu ka toobadkeenay waxaa weeye hadalkii u dambeeyaa dumarku iyo raggu waa siman yihiin wax ay dumarku ka nuqsaansan yihiin raggana ma jirana ayna uu ka badbaadayaa wuxuu kaga badbaadayaa hadduu ictiraafay tafsiirkii uu nabigu xadiidka ka bixiyey meeshii maxaa ka baxay inay siman yihiin meesha waa ka baxday inkiraadda uu dafiray uu yidhi ma jirto wax nuqsaan ana nuqsaantiiba hadda sugahaya ilaa nabigaa sugaye tafsiirkiisana waan ogolahay waana qaatay buu yidhi inaad ifahanteen baan u malaynaya
saddexdaa kufri si cad oon ku dhiiran karo haddaan ahay aw xasaan ayaa aniga ii muuqato anagu cidna ma taqliidinayo wadaadda hadlayna waxba igama jiro dembigaygaan qaadaa wanaagaygana anaa iskale ma tamise maaha wixii aan wadaadkaa ku haystay si aan loo eedaynin baan u eedeeyey waa ogtihiin wadaaddaha la mid ma ahayn si aan loo eedayn ina warsame iyo meelaan lala marin baan la maray marka hadda aan ka hadlay qadiyadiisana waa inaan furfuro silsilooyinkii iyo jalfistii iyo minooyinkan daadiye waa inaan furfuro wey waad qoslaysaa baan u malaynaya khayr wey waa wixii furfurmi kara hadda wixii furfurmi kare ama la qarxin karo baynu furfuraynaa wixii furfur diida sidiisaan oga tegaynaa maxaa inoo soo hadhay saddex kufri baa soo hadhay saddex kufri maxay ahaayeen tacdiimu kaafirin kow iyo nidaamka islaamiga ah ee siyaasiga ah in la baksiyo midka reer galbeedka kufrigan la bombooniyo oon siyaaqa guud ka keennay labo kufriga saddexaad muxuu ahaa lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a haweenayda haddii madaxweyne laga dhigo burbur iyo balaaya ka dhalato shareecadu tiri asaguna maya ka yidhi saddexdaa kufri baa hadhay saddexdaa kufri si cad oo ayaga ku aadan ile dembiga markaad gasho waxaa wanaagsan in la magacaabo dilkii hebel aan dilay waan ka toobad keenay lacagtii aan ka dhacay cabdulaahi ilaahay baan oga toobad keenay kitaabka ow hebel aan ka xaday waa u soo celiyey waa ka toobad dembi walba iskii in loo cayimaa wanaagsan markaan ku dhiiranayna wuu ka toobad keenay ereyga aan odhanayn haddiise aan u raadina makhaarij fiqi ah ama sharci ah waxaan leenahay saddexdaa dembi si cad oo daahir ooga toobad keenay saddexda kufriga hore saddexdan dambana hadal wuxuu la yimi uu yidhi wax walboo khalad ah ama dembi ah oo kelimadayda ku jiray ilaahay baan oga toobad keenay ooga noqday saddexda kufri ee dambe waxay guda galayaan towbada caamka ah saddexda kufri ee inoo hadhay lixdii ka soo hadhay ee ku jirtay hadalkiisii hore waxay guda galeen hadalkan dambe uu yidhi wax walbo khalad diineeda oo kelimadaydii hore ku yimid waan ka toobad keenay allah nooga noqday kullu ibn aadam khata wa khayru lkhataa'ina tawaabuun halka uu la maro waa garanaysaa halka marka waxaa imanaya ma bannaan tahay atawba alcaama waa masale fiqi ah inaan iska dhanna wuu toobad keenay sida wadaadaha qaarkood masalada in la furfuray u baahan tahay yani baasha lama qabyaaladeeyo lamana siyaasadeeyo wadaadadoo fayl gara arkahayay baashu bahal abargidir iyo bahal daarood midna ma aha mid maxaanku idhahdaa direed iyo mid ree awna ma aha mid carbeed iyo mid sooma waa mid diineed hawl diineed weeye waa aniga dareenkan qaba weeye wadaaduhu daacad iyo diin ka tahay waa laga yaabaa oo ilaahay ku ogay mukhlisiin yihiin laakiin aniga wadaadaha Soomaali baan tuunsanahay xasaan ahaan ee ogaada ama igu nacam igu diida wax badan baan ka soo arkay kuwii aan qaraabahina afsame meeshan kala gaarno soo garan maysaa xageen isla tagnay niman diinta islaamka gato dhan bay dhaheen waa fiican yihiin ma ogaadeenima ida haysa aydi waxaad igu samaysan ogaadeen wixii ila gaaray Soomaali way ogtahay baashu marka hadaan ka soo tago kaftanka iyo qabyaalada ka soo tago waxay u laabanaysaa ma bannaan tahay adoo dunuub badan oo ka nooca galay inaad si guud u toobad keento atawba alcaama la yiraahdaa atawba alcaama atawba alcaama way dhib badan tahay waa mas'ala khilaafiya شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه هذا الكيس في مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى iyo ardaygiisa ibn qayyim kutubtiisa sida ku jirta fataawa atawba alcaama way banaantahay waxaan lagu xambaarayaa ninkii si guud u toobad keenay waxa la leeyahay dambi walba uu ka toobad keenay allahumma inuu yimaado wax khasisan mooyee haddaan aragnayna warsamo yidhi dambi walba iyo khalad walba ku galay hadalkii hore waa ka toobad keenay ilaahin ha caafiyo ummadun ha caafiyo waxaan leeyahay waa ka yeelay laakiin hadallada dambe iyo qaab socodka dambe haduu ka muuqdo hadalkii hore ee caamka in wax ku laaban yahay
inta kuu laabnayd kamaadan toobad keenin laanna waxaa dhici karta khaladaad waxaa anagu khalad u aragno iyo kufri diineed u aragno inuusa asagu u arkin kufri iyo khalad haddaba markaa kama toobad keenin bay noqonaysa ruuxu muxuu ka toobad keenaa wuxuu u arko inuu yahay jariime iyo dembi buu ka toobad keenaa haddayna isku aragtiba ahayn xaggana aad si guud u tidhaahdo khalad walba ku yimid hadalkayga ilaahay baan oga toobad keenay anigu waxaan ku fasirinayaa khalad walbo anigu khalad aan u arko adna maxaad ku fasirinaysaa wixii khalad u aragto aragtideenni baa isweydaaran marka saan ku dhahan ma aqaan saan marka waxa u roo inaan dhahno bal toobal caama aan aqbalno oon dhahno dembi walba oo xataa saddexdii u dambayso kufriyaadka ahayd kelimii u dambaysay ayaa baabi'isay oo toobadan dambe caamada ah yaa waxay baabi'inaysaa saddexdii inoo dhimanaydeed ku jirtay kelimadii hore waa haddaan dhahno atooba alcaama waa maqbuula waana sida raajixa ah sida ka muuqanaysa hadallaha culummada ka muuqanaysa ilaa amminkanna waxaan dhahno waa khasisan yahay oo waxbaa u laabanoo cad ma helin laakiin dareen baan ka qabaa ereyga uu celcelinaya uu leeyahay xuquuqda dumarka waa u taagnaanaya cidna oga baqi maayo weligayba waa wadahaya waa sii wadahaya ma fahmin waxa ka maqan ee uu baadi goobayo ma fahmin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adduunyadana waxaa laga jeclaysiiyey الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة waxaa nabigu yidhi laa takrahu البنات فإنهن المؤنسات الغاaliyaat dumarka iyo gabdhaha yaan la koonna maxaa yeelay waa wehel qaali ah nabigu intuu dumar xurmeeyey ama qiimeeyey ama sharca qadarisay ma jirto asagaa qiraya sharca lamida sharcadeenna inaysan jirin xagga qadarinta iyo xuquuqda dumarka waxa marka uu baadi goobay inuu warsamo uu la waalanaya ka maqan uu la miyirbeelay ma fahmin idan saa darteed dareen baan qabaa toobadiisa caamka ahayd in wax u laaban yahay dareen baan qabaa hase ahaatee in badan baad eedayseena dareenkaasi ku shaqogeli maayo waxaan leeyahay ilaa amar dambe toobadii si guud baan u aqbalay oo toobal caam baan leenahay saddexdii kufri oo hore iyo kuwan dambaba waxaan ka soo qaadaynaa inuu ka toobad keenay taa waxay khusaysaa khaladaadkiisii lixda ahaa howlihii aan ku haysa dimuqraadiyiin ma khusayso waxaa kuu soo hadhay ishkaal fiqi oo kala dhiman oo ah towbatulkaafir maxaa lagu aqbalaa shardu tawba iyo rugnigeeda asaasiga muxuu ahaa annadam baa ugu asaasan rugniga towba ama sharda ugu culus waa inaad ka qoomayso ood ka shallaytooto wixii aad samaysee dambi ah inaad isfanaan u malaynaya haddaba marka arrintaasi maxaa lagu samay kufrigii waan ka toobadkeene waan ka noqday keliya ma ku filan tahay mise waa in la helo shallayto iyo qoomama leh iyo nadam iyo nadaamo la helo laba qaab baynu oga jawaabaynaa shardiga ama rugniga in la helay baa muuqanaysa qodobka koobaad hadalkiisa markuu nin sanka taagahaya oo nahalabsanaya oo diintaannada ku mashxaradaya oo quursanaya oo batraana oo wuxuu ahaa wuxuu doono ku hadlaaya maalinkuu joogay angala markale ula joogay markuu halkan yimid halka jeediyeyna ee afrikan u noqdayna hadal soomaaliyeed oo xushad ku dheehan yahay oo degan oo qabow oo miskiinnimo ka muuqato ilaahay baa miskiin loo noqdaaye ayuu ahaa markaan qiimayna muuqaalkiisa waxaan leenahay ina warsame waa ka qoomameeyey xumaantii iyo khaladkii uu galo nadaamaa ka muuqatay ma dhihi karaa mise ma dhihi karo wadaadow waa ila fadhida aan tashanne hawsha aynu ka shuurayne waa la dhihi karaa haddaad diiddaan godaan ka baxa ma waayo towbatulkaafir iyo towbatulmuslimi caynilmacsiya isku xugum ma aha caamada iskaga khaldantahay oo culumma iskagama khaldanto laakiin waxaa jirta caamo culummo ismooda in badanna waa ka soo hadlay towbatulkaafir waxaa laga niqaashay ma mujaradu islaamihii baa tooba u ah mise nadaama laga rabaa iyo qoomama laga rabaa
ninka kufri iyo gaalnimo ku dhaca ama kaafir ba ah markuu toobad keenayo ma inuu kufrigu uun ka tagaa u tooba ah mise waa inuu ka tago xaggana uu ka qoomoodo ka shalaytoodo الصواب عند العلماء على الراجح من أقوال العلماء وحاوي توبة الكافر ومجرد إسلامه إنه كفر كتغو كيما دكلية أو توبة إنه كشليتوده وحي ورو سمين جرى شرط معها طاوح الله شرطيا ذنوب تكلية معاصي كلية أما الكفر وحال ربا كلية إن الفراها كلب حدو على حد قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يغفر لهم ما قد سلف انت مركان جبينو waxaan leenahay khulaasadu waxa dhiba kuma jiro inaan dhahano si gaara iyo si guudba ina warsamay lixdii kufri aan ku haystay uu ka toobad keenay laga bilaabo caawana naftiisa khatar kuma gelin kartaan lixda qodob haddaad si kale u khatar gelinaysaa oo xisaabo kale idinkaga maqan yihiin ama howlo kale aad ku haysay idinka idin taallaa waa isfahananu maaya laakiin lixda aan idhi ninkaasi ha lagu khatar geliyo laga bilaabo caawa anugu ma qabahee in lixdaa loogu khatar geliyo laakiin fara kaloo ilaaban waa jira waadna ogtihiin faraha kale ila iskuma haysaneen ma ogtihiin kuwa miyaad ugu haysateen mise kuwo kaloon xisaab cusub baad ugu haysateen xisaabta halkaasay ku xidhantay waa sida iyo muuqata way waxaa jirtay kelima cali wajiis baa jirtay oo igu aadanid aniga kelimada cali wajiis waxay tiri gabadhi meesha laygu furi fogaad ha joogee kelima tacliiq yar iyo muslim qaadi kara ma aha waruba daaratin naafica xadgudub diineed oo ina warsama uusan gelin buu cali wajiis galay xadgudubka uu galay wixii shakhsiga aniga igu saabsan kuma mashquulo horaan bay absamay ku soo daaleen ku mashquuli maayo taas sheeka barley iyo been meelna kama socoto reer nairobi baa ku daalay reer muqdisho hadda soo rucleeyey way ku rafaadahayaan marka laakiin khaladaadka iyo xadgudubka diineed cali wajiis uu galay ee diintu majara habaabiyey fadhi gooni aan ka qaban doono hadduu alla yidhaahdo waxaana caddayn doonaa nebi maxamed inuu nabi inuusan rumaysnayn wallahu aclam